السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوتيوب channel هذا ولا سواء قيس كسر دواء هذا لنا ما أنت هو مال عصب مقال عصب يوم قال عصب هل كان نقص وقال هاي وحويا وبورتا كليمانجارو هل كان وحويا بورتا كليمانجارو هل كان لقى جرا أفكير ويان واحد شغل مقالة دار السلام وحوي عاصمة دي هراء تنزانيا هاك أفرت الصبح لما صوب حني وحوي استريش كي يقولها هل كان إن النماذج شو قماش يا بقرح بديه وحوي ساعة كيسان بورت هالكي اللي جلي أفكيد ما نشوفنا بورت كليمانجارو هالكاس في اللي جحته ضرورة هم باقرنا يا وحوي وبورت أفريقيا وقدر وحنا الله يرحمه وحي كتيرته بورها وقدر عالم كورن وحوي ما شاء الله مقال قرح بدن بالمانتي من دعوة سنت والله أو بورتا كوسابسن إن فر بدن بنكوهمي إن هالكن إماتو وحوي قاعد جالس لسه واكاس gaarigan baan ku xaysanaa horaan ugu sii soconaa kadibna waxa weeyaan buurtan daawadsiin doonaa كيسان بالحيسيال فربنا ما ماشي تشوفه اللي بس وريت الدنيا كوفيدنا هذا سليدي حقوقك كاني لما كان بنكي بسدي waxa laga siiyay 10 kun oo lacagtooda 10 kun oo lacagta Tanzanianka waxa noqonaysaa meelaha $4 iyo bar meelaha $5 way iska jabantay waa sixirka cadayga ma sha Allah waxa weeyaan halkan marka la koro ilaa 30 mirir lagu lugeeyo ayaa la arki karayaa buurta halka laga ma arki karo sababtoo halkan lafteeda meel sare waxway saaxiibayaal saad arkaysaan halkan aanu soo gaadhnay waa halka kaliya aanu ka gaari karayno buurtii Kilimanjaro waxa weeyaan gaarigu halkan baa ugu dambaysa waa in aad saacad ama 2 saacadood lugayso marka lugaysay aad buurta u dhawaateed hoosteeda tagtana waxa laga rabaa inaad kortona si aan idin sheegay waxa qaadanaysaa 5 cisho oo sii socda iyo 5 cisho soo socda waxa 5 cisho la sii soconayo hudheelaha xagga sare ku yaaliya dhexdaya oo waxa weeyaan la seexdayo loogu talagalay soo socodkana sidoo kale marka waxa weeye waanu maanta ugu maanaan soo talagelin insha Allah mar kale aanu team isku soo raaci doonaa homies koo dhan baan soo kaxaysan doonaa ciyaar suuqii oo dhan ayaa halkan isugu iman doona buurta waxa weeye dad badan baa isku ayaan ku kori doonaa laakiin imika suurtagal maaha waayo safarkayga oo dhan baa 10 cisho marka way nagu adagtay in 10 cisho hal buur aanu ku isbaangarayno waxa weeyaan ma sha Allah waa taa buurta Kilimanjaro waxa weeye dhalinyarada yar ee imika dhigata cilmiga bulshada waxaan leeyahay fiidiyowgaygan hala daawadsiiyo berigii hore anagu aan cilmiga bulshada dhiganaynay sawirro baan la tusi jiray afkana waa looga sheegi jiray laakiin maanta walaalkiin oo idinka weyn baa tagay ku soo dulqadeeyay buurta Kilimanjaro waxa weeye waa taa Kilimanjaro ma sha Allah waxa weeyaan safarkeena inuu ku sii soconaynaa I heard there was a Tanzanian guy who climbed this mountain for like 9 hours. Yeah. Is that true? Yeah, of course. And what was his name? The Alexander Nyirenda. Alexander Nyirenda. Nyirenda. Yeah. So, is he alive right now? No. But when
come down, they died. When they come down, they died. Yeah, For the record. yeah. taariikhda mid kalena Wallahi waa taariikh weyn. taariikhda mid kalena waa idinku darayaa qofkii ugu yaraa ee buurta fuulay ayaa isweydiin lahaa kuma aha waxa in yaro 6 jir iyo 7 bilood 6 iyo 7 bilood buu jiray baa la yiraahdaa cadaan buu ahaa hooyadii iyo familygooda sitay buurtana la saaray dhikadiisa waxbana kuma noqon. He's saying the youngest person who climbed this mountain was a 6 years old baby. His mother and father was carrying him the mountain. They were a white family. Oh. Yeah. I see the information. Yeah. Tanzanian information. Nah, we are not trying right now, but in the near future, inshallah. Have a good day, brother. Thank you so much. Okay. Thank you so much. Thank you My so much. Tanzanian brother. My Tanzanian brother. Okay. Kilimanjaro waxyaabaha ay caan ku tahay waan idin sheegayaa. waxay qaadataa 5 ilaa 9 maalmood si aad u gaadho buurta dusheeda. waxay qaadataa 5 ilaa 9 maalmood. aad iyo aad bay u adagtay inuu qofku magaranaysa 9 ilaa 5 cisho uu joogo halkan haddaanu ku soo talagelin marka hore safarkiisa. buur yar oo iska gaaban baan mooday wax kale ku booda oo soo dega laakiin way socon weyday. ninka la dhaho Karel Egof Swiss waxa uu haystaa rikoodhkii ugu khatarsanaa ee buurta Kilimanjaro. waxa uu ku fuulay muddo 6 saacadood iyo 56 daqiiqo ayuu ku fuulay. rikoodhkani wuxuu xidhnaa markii hore nin lagu magacaabi jiray magaciisa la odhan jiray Jornad oo isagu 7 saacadood iyo 14 daqiiqo ku koray buurtan. Bro, you become this photographer. That's my tower guide, yeah. Yeah. صاحبي أنا صدقني صار ماشي وميل عجيبة وميل أميزنا. Amazing. صرنا والله waxay yimaada halkan 30 kun oo qof ay yimaada 3 qof iyo 10 qof baa ku geeriyooda siday noo sheegeen warbaahinta Tanzania. Kameeshan waa meel cajiib ah. sidoo kale buurtan Tanzania waxyaabaha caanka ku tahay waxa kamid ah yani dadka badankoodu waxay ka baqaan dadka fulayaasha oxygen ma la qaadan karo mise lama qaadan karo oxygen uma baahnid. waxaan xasuustay macalinkaygii cilmiga bulshada ee dhigi jiray Saciid Qooy halkan baan ka salaamayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ku xifdiyo waxa weeye buurtii aad igu dhigtay cilmiga bulshada ee ahayd Kilimanjaro maantaan ka qadaynayaaba dusheedaan ku qadaynayaa maanta weeyaan maasha Allah waxa weeyaan waqti aad iyo aad u fiican baan ku qaadanay meeshan buurta ma kori karayno oo sidaan idin sheegnay waqti aad u fara badan bay qaadanaysaa in dusheeda la koro laakiin waxa weeye dusha waa laga arki karaa oo halkaas baad waxa weeye ka salaamaysaa waxa weeye buurtan waxaan islahayn markii hore ku boodaa oo ka soo degaa maxaa dhacay waad aragtaa waynu sibqalnay waanu gaari weynay annaga tiri haray lagu tiri muuqaalka halkan baan ku soo xidhi doonaa muuqaalka haddii ku soo gaadhan like subscribe share